بسم الله الرحمن الرحيم maanta waa maalin Arbaca bisha Maarsna waa 2021 waxa aynu ku jirnaa oo maanta halkan u joognaa shirkii madasha wada tashiga qaran oo ka socota taliska ciidanka cirka ee Afisiyoni magaalada Muqdisho shirka madaxda wada tashiga qaranka oo hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu galay maalintii saddexaad wuxuu soo bilaabmay Isniin talaado iyo maanta Arbaca waanu sii soconayaa shirku maalmaha soo socda shirka oo ay maanta ka soo wada qayb galeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle gobolka Banaadir dhammaantood wuxuu ku furmay oo ku sii socday jawi aad iyo aad u wanaagsan madaxdu waxa ay ka wada hadleen si ambaqaadista arrimihii shalay ay soo bandhigeen guddida farsamada ee arrimaha doorashooyinka oo soo jeediyey shirkii Baydhabo iyo isfahamkii ka soo baxay aad bay arrimaha uga doodeen madaxdu maanta waxaana ay ku ballameen in berritana halkaa laga sii ambaqaado waxa maanta iyaguna joogay guddiga amniga qaranka taliyayaasha booliska laakiin warbixintoodii waxay u dhacday berrito oo maanta lama dhageysan sababtoo waxa lagaga mashquulay howlihii kale ee siyaasadda iyagoo aad u muhiim ahayd hawsha amnigu sida aynu shalay sheegnay shirku sida aan idiin sheegay waa maalintii saddexaad waanu sii socon doonaa halkaasaanu ka sii socon doonaa waxa ugu baaqayaan madaxdu shirkuna ugu baaqayaan madasha wada tashiga qaranku madaxda ka maqan ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland inay ku soo qayb galaan oo ay ku soo biiraan madashiga wada tashiga qaranka ee ka socota xirada Afisiyoni taliska Afisiyoni ee ciidanka cirka Soomaaliyeed si loo dardargeliyo arrimaha doorashooyinka iyo qabsoomidda doorashooyin qaran oo inoogu dhaca si nabadgelyo oo hufan intaasi waa shirkii madasha wada tashiga qaranka iyo halkii uu maanta shirku marayay waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed halkan aan kula wadaago fariin aan u dirayno wadamada caalamka danjirayaasha dowladaha caalamka ee jooga dalka waxa jira danjirayaal mararka qaar qora oo dira oo u soo dira dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed fariin aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga iyo ixtiraamka madax bannaanida dalalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa jamhuuriyad madax bannaan madaxbannaanideeduna ay tahay mid buuxda oo sovereign state ah arrimaheeda guduhuna ay yihiin lama taabtaan lamana farageliyaan sida ay xuquuq leeyihiin dhammaan wadamada madaxa bannaan ayay Soomaaliyana u leedahay xuquuq madax bannaan Soomaaliya cidna doorashadeeda ma farageliso Twitterna uma qorto sidaasoo kale wadamada saaxiibka waxaan ka filaynaa inay ilaaliyaan madax bannaanida iyo wadajirka bulshada caalamka waxaan rabaa inaan runtii fariin adag halkan aan uga diro Soomaaliya iyo wadamada caalamka waxa ka dhaxeeya isfaham iyo xiriir wanaagsan waxa kale oo aad ugu mahad celinayaa wadamada wax badan la soo qabtay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed mana ilowsanin abaalka ay nagu leeyihiin dowladahaas iyadoo abaalkaasi jiro haddana dowlad ahaan waxa aanu ku adagnahay ilaalinta madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aanu mas'uul ka nahay fariin kasta oo ka hor imanaysa madax bannaanida iyo gobonnimada jamhuuriyaddu waa mid aan la aqbali karin intaana waxaan rabaa fariintaa inaan u diro in laga digtoonaado oo ay tahay red lines ama khad axmara ama khad cas ku xadgudubka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dunidu waxay ku wada nooshahay isfaham istixgelin iyo ixtiraam sida ay dhigayaan dhammaan shuruucda caalamiga dal ka soo gudbi kara oo dal kale faragelin kara arrimihiisa gudahana ma jirto waa mahadsantiin waxaan ku soo gabagabeynayaa bulshada Soomaaliyeed aan u sheegayaa shirkii madasha wada tashiga qaranku si fiican buu u socdaa waanu sii soconayaa waxaanan rajaynaynaa inay ka soo baxaan go'aamada xaldgal ah oo inoo hogaamiya doorasho hufan oo nabad ah oo xor ah oo qurux badan
aad iyo aad baa umahadsantihiin waynoo berito saacadahan oo kale